بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي أيا سنتهين جالية نوروي يا غيبها كلا كترسن يوروب عاو هل كان كسجن وحن آدي وقعد الدارنا ضد آدي أفر بدن والصوماليات أو وراءه إن يسوروب وإذا هولك إنه قاضه oo ay banaanka naga joogaan ama soo gali waayeen waa ka cudur daaranaynaa waana u mahad celinaynaa dadaalkooda iyo nasiibada waxaan sidoo kale u mahad celinayaa soo dhaweynta diiran ee jaaliyadu iyo asxaabta iyo dadka eelka oo dhami ay halkan ugu siiyeen aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu sii mahad celiyo dawladda Norway oo runtii soo dhaweynta halkaan lagu soo dhaweeyay aad iyo aad ay u sareysay laba maalmood aan dalka joognaa laga soo bilaabo boqorka dhaxal sugaha boqortooyada ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda iyo gabadheennii maxaan ku wasiiradeeda u dambeysay halka xafladda nala joogtay intaba dawladda Norway aad iyo aad ayay noo soo dhaweeyeen waa ka mahad celinayna waxaan rabaa inaan intaa ku daro Norway waa markii ugu horreysay madaxweynaha Soomaaliyeed oo xilka hayo uu yimaado laakiin sida ay tahay haddana aad iyo aad ayay Soomaaliya u garab istaagneed muddooyinkii dambe oo duruufaha adag dalku ku sugnaayo dhan Norway waxay qayb weyn iyo sabab weyn u ahayday arrintii deyn cafinta ku saabsaneyd waqti dad badan oo caalamka ama dawlado badan oo caalamka aanay diyaar u ahayn inay xaddiga dhaqaalaha lacagta cafinta Soomaaliya lagu bixinayay oo haddii aan la bixin lahayn ee nagu adkaan lahayd inaan hore u soconno ayay Norway intay imaadeen ay lacagta horta inteedii badneed ay naga bixiyeen si processku u socdo maaha lacagtii la cafinaya maaha laakiin midii fududaynaysay in maxaan ku raadaay wadada deyn cafinta hore loo sii qaado marka aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa duruufiya adkaa intii dalka ka jireen oo dhan dalka Norway waana garab taagnaay waa ka mahad celinaynaa dadka Soomaaliyeed ee jaaliyada halkan laga amaanay caawa amaanay noo wada tahay sharafta iyo maxaan ku raadayay karaamada iyo magaca dadka jaaliyada Norway ay ku leeyihiin Norway dhexdeeda yaani Soomaaliya dhan ayay u tahay runtii amaan iyo muxuu ahay qadarin anigana runtii aad iyo aad ayaan arintaas u bogaadinaya dalkan dabcan waana soo dhaweeyay duruufo adag markay dalka jireen dadaa yimiday caruur ku dhalay degan ilaa maantana degan oo qaarkood mas'uuliyiinta dalka Norway ay ka mid noqdeen oo maanta dalka Norway ay mas'uul ka yihiin shacabka Norway dad dawladdaas iyo dadkeedu muwaanay abaalgud nugu lahayn waa nugu leeyihin Soomaa waayahay abaalgudka ugu fiican ee aan kari karno ee aan sii karno marka muxuu yahay waxa ugu weyn ugu muhiimsan wuxuu yahay dawladda shuruucdeeda iyo nidaamkeeda iyo qawaaniinteeda inaan ilaalino waa hadiyada abaalgudka ugu fiican ee aan maxaan ku raadayay aan u abaalgudi karno waay dadka reer Norway dhaqankooda iyo hab nololeedkooda ayagana sidoo kale inaan ixtiraamno aan ilaalino aan qadarino waa hadiyad kale ayadana aan ugu abaalgudi karno waay sidaas daraadeed waxaan kula dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed ee reer Norway inay aad iyo aad u ilaaliyaan dalka sida wanaagsan ka jaaliyad ahaanna idin soo dhaweeyay dalkiini adigu aad ka timideen oo duruufaha adag ee jiray ee idinka keeneen sidoo kale meeshiisa ay ku kaalmeeyeen hadday siyaasad tahay hadday dhaqaale tahay hadday humanitarian ama muxuu ahaay bini aadamnimada ay tahay intaas uga baxo waxaan rabaa inaan u imaado Soomaaliya walaalayaal sida halka caawa halkan laga cabiray dadku odayaashii waaweynaa ee halkan ka hadlayna ay sheegeen abwaaniintiina ay maxaan ku raadayay ku cabireen sugaanta dalkana Soomaaliya hore ayuu u socdaa waa daahnay 30 sano muddo aad iyo aad u dheer waaye oo ummad cimriga qofka ku dheer laakiin cimriga ummadaha kuma dheera 30 sano laakiin qofka bini aadamka shakhsiga ah
soddon sano cimrigiisa way ku dheer tahay muddo dheer waaye soddonkaas sano intaa dalka horumar baa ka jiray marba marka ka dambeyso si unbaa yaa looga roonaanayay laakiin waxaan isleenahay wixii la qaban karay waxoogaa gaabisaa ka jiray soddon sano meeshii la rabay in lagu soddonkaas sano waa soddonka sano ee adduunyada ay horumartay waaye waa soddonka sano ee science and technology ay horumareen waa soddonka sano ee dunida isu soo dhawaatay oo la isdhex galay soddonka sano annaguna aan maxaan ku rahdaa waxoogaa aan mashquulsanayn waay marka waxaan rabnaa dee howl badan noo taalla inaan adduunyadaas tagtay soddonka sano naga tagtay inaan ka daba tagnaana laga rabaa oon ka daba cararno si aan uga daba tagno waa inaan marka dadaalkeena badinaa shaqada aan qabanayna laabnaa saddex laabnaa wixii toban sano in lagu qabta ahayd waa inaan soo gaabino aan 3 sano 4 sano 5 sano u badnaan ku qabanaa sidaasaan uga daba tegi karnaa laakiin adduunyada hadday sii socoto annaguna intay adduunyada ku socoto kale aan kusoo daba socono weligeen waa farq gaabka noo dhexeeya ama distance-ka noo dhexeeya wuu noo dhexeynaya laakiin inaan annaga ka dheerayno adduunyada oo aan intay ku socoto orod ka dheera aan ku gaarnaan rabaa sidaas daraaddeed dadaalada Soomaaliya aad ka arkaysaan oo faraha badan oo yani barbar socodka shaqadaan qabanaynaa ka bacditaan ku xijinaynaa haddii aan dhahno waqtigu nagu dheeraanaya dhowr shaqo inaan isla qabanno oo isku mar ay socdaan waaye sida aan maxaan ku rahaa dunida carartay ee naga fogaatay aan uga dabatay waa sababta dalka in khawaarijta laga xoreeyo dastuurka in dib loo eego nidaamka federaalka in la xoojiyo nabadeynta iyo maxaan ku rahdaa Soomaaliya gudaheeda laga shaqeeyo caalamka nabadeyntiisa aan ka shaqeyno Soomaaliya nabada dunidana nabad la waxay ahayday halheyskeeni waanan ka dhabayn ilaa hadda dalal badan oo shalay annagu intaanan iman talada Soomaaliya cilaaqaadkoodu aad iyo aad u hooseeyay dib u soo celinay kuwa badan oo isku fiicnaan shalayna waan sii fiicnaynay muxuu ahaay cilaaqaadkooda sidaas daraaddeed Soomaaliya iyadu nabad isla ah dunidana nabad la ah ama heshiis la ah saaxiibo la ah waa midda aan ka shaqeynayno ilaa iyo haddana waa ku soconnaa waxaan rabaa nimanka la yidhaha khawaarijta 17 sano ayay dalka Soomaaliya ay dhib ku hayeen oo 34 sano oo burburkii dowladnimadeena ka dambeeyay ka mid ah jamhuuriyadda saddexaad siday u curatay ee dalka Djibouti carta 2000 laga soo bilaabo 24 sano 17 sano ka mid ah nimankani dabar ayay ummadda Soomaaliyeed ku hayeen iyaga oo ummadda Soomaaliyeed wixii ay ugu jecleed ugu aaminsaneed ku midaysneed xaggeeda ka soo galay oo ah diinta islaamka alxamdulillaah dadka Soomaaliyeed maanta waa fahmeen nimankan khawaarijta ah in aanay diin ahayn waxa ay hayaan iyo dhaqanka ay hayaan iyo waxa ay sameeyeen laana dadku way tuseen way arkeen diinta islaamka waa diin nabadeed waa diin maxaan ku raadayay naxariis waa diin maxaan ku raadayay ixtiraam iyo qadarin iyo walaqad karramna bani aadama ayuu ilaahay human rights waxa la bani aadamka dhan ayaa ilaahay yiri waa karaameynay muslimiinta gaar uga ma dhigin laakiin bani aadamka ilaahay abuuray oo dhan ayuu ilaahay yiri waa karaameynay karaamadii bani aadamka inta ka soo tageen oo tii gaarkeeda muslimiinta ka soo tageen oo tii Soomaalinimada ay ka soo tageen ay dadkii tarab u laynayaan waad aragteen sidaas daraaddeed meel ay diinta dhaqankeeda iyo qiimkeeda ay ka soo galaan ma jirto alxamdulillaah dadka Soomaaliyeed maanta way garteen culimada Soomaaliyeedna muxuu ahay way dhiiratay dadkana way u sheegtay dhaqankooda waxa uu yahay sidaas daraaddeed guulaha maanta aan gaarnay waxaa sabab u ah dadka Soomaaliyeed oo yiri bas kifaaya enough is enough dhaqanka dulinimada ku salaysan ee nimanka la yiraahdo khawaarijta bas intaas nooga filan tahay waa dhamaatay meeshaas maaha ciidan kaliya maaha muxuu ahay hub iyo qoryo iyo xabado iyo madaafiic la tuuro kaliya waa shacabka Soomaaliyeed ee gudaha Soomaaliya ku nool ee u istaagay inay heeriyada iska tuuraan inta dhimanna waa ku daba joognaa waana diyaar u gacantay noo haatinayaan
warana soo gaarayna leeyihiin waana gaarayna hadii alla yiraahdo biyo Soomaalidu waxay ku maamulaa biyo sacbadaada ayaa looga harad baxaa ama looga haqabaxa dalka Soomaaliya dhibaatadii iyo wixii ka dhacay mas'uuliyadeeda annaga iskale wanaaga imaanayana mas'uuliyadeeda annaga iskale caalamku wuna kaalmeeyay wuna kaalmeyn karaa laakiin dawlad nooma dhisi karo dawlad dadka Soomaaliyeed oo kaliya ayaa dhisan kara ayanaga oo cadawgeena gudaha sida khawaarijtana meel iska dhigno cadawgeena dibadda kuwa badan oo jiro oo jecel Soomaaliya meesha ay joogto in ay joogto ayagana maxaan ku iraahday iska waxay dalka waxaan nasiib u yeeshay inaan noqdo madaxweyne ugu horeeyay ee ku meel gaarnimada kadib Soomaaliya madaxweyne ka noqdo 2012 maalintaas waxaan bilownay dagaalka maanta aan wadnaa maalintaas aan soo bilownay dalka inaan khawaarijta ka xoreyno intaasoo degmo ayaan xoreynay nidaamka federaalka oo buugga dastuurka ku meel gaarka aan noogu qornaa kaliya ayaan dhaqan gelinay oo aan dhisnay haykalkiisii waagaas maanta waxaan u taaganahay wixii waaga xigmadii ama halhayskii 2017 doorashada markay ahayd aan iyo 16 qabyo qofkeeda dhameystira ah dhamaystirkii haddaan ku raad joognaa insha Allah markaan ayadoo qabya ka tagmayna ayadoo dhameystiran ayaan ka tagaynaa gaariga hadday tahay dib u xoreynta dalka iyo hadday tahay dhamaystirka dastuurka iyo hadday tahay xoojinta federaaleynta dalka intaba muxuu ahaay waa howlaha si siman ee isbarbar socda u wada socda waay waana ka libkeenayna insha Allah ilaahay idinkiisa dalkeenu waxa aan rabnaa ama baahida aan qabnaa aad iyo aad ay u badan tahay waxa naga maqana aad iyo aad ay u badan tahay laakiin wax baan qabsanay wixii aan qabsanay hadii aanan ku faraxsanaanin oo aanan jeclaanin oo aanan maxaan ku iraahday ku faanin inaan wax qabsanay waxa faraha badan noo dhimanna ma qabsan kareen dalkan Soomaaliya la yiraahdo labadii sano ee la soo dhaafay deynti waana laga cafiyay 2012 aan bilownay deyn cafinta intaas way soo socotay maamulkii aniga iga horeeyay dabcan way sii wadeen waxbay ku dareen annaguna hadda fursad nasiib kale ayaan u yeelanaa annagoo joogna inaan deyntiina laga cafiyo dagaalka cunaqabataynta hubka in laga qaado sidoo kale ku meel gaarnimadii markaan ka baxnay dagaalkii aan bilownay oo ah 31 sano kadib cunaqabataynta hubka waana laga qaaday taaramkii hore oo aan madaxweynaha ahaa cunaqabataynta hubka waana laga yareeyay nalagama wada qaadin laakiin waana laga yareeyay taaramkan waa ilaahay mahadi waana laga wada qaaday complete waxay ahayd tallaabo labaad oo ayadan aan ku guuleysanay oo aan meel gaarsiin dalka Soomaaliya dadkeena waa ogtihiin waa dad ganacsato ah waa dad maxaan ku raad gadisley ah waa dad socdo oo suuqa xorta iyo dhaqaalaha furfuran aaminsan waay ko siyaasiyan dalka waxaan u doornaa modelka ah in dhaqaalaheenu uu noqdo dhaqaalo private-ka ay wadaan oo ay riixaan oo private-ka ku salaysan oo dhaqaalo furan oo suuqa xorta iyo suuqa furan intaba ku shaqeeya sidaas daraadeed waa inaan u meel daynaa qawaaniinta investmentiga ilaalinayso qawaaniinta hantida gaarka ilaalinayso dhammaan qawaaniinta xogta gaarka ee qofka iyo shirkadaha iyo ay leeyihiin ilaalinayso qawaaniintaas oo dhammaan sameynay dalka u sameynay sidoo kale Soomaaliya waa dad yar marka ummadaha adduunka loo fiiriyo suuqay u baahan tahay ee badeecadeeda u iib geysato waxaan ku darnay suuqa bariga Afrika oo yani 200 milyan ah dalkii 8aad aan naqanay oo suuqaas ku biira
dadkeenu dalalka suuqaas joogaaye ka tirsan xubnaha way joogaan. Kenya waa ognahay waxa aan ganacsi iyo hanti iyo maalgashi ku leenahay. Uganda waan ognahay waxaan ku leenahay. Tanzania sidoo kale, South Sudan sidoo kale, ilaa Rwanda iyo Burundi waa jirnaa, ilaa DRC waa jirnaa. Dadka Soomaali way jiraan. waxaan sameynay kaliya jiritaankoodaas iyo joogitaankoodaas iyo ganacsigoodaas waan sharciyeynay inay xuquuq yeeshaan oo dalalkaasi aanay marti ku ahaanin ayaan ka shaqeynay waana dhammaystiraynaa waxyaabaha yaryarkaa noo dhiman muddo sanad ah dalalka qaarkood dhowr sanay ku qaadataa muddo sanad ah ayay nagu qaadatay in aan si xubin buuxda aan ka noqono maxaan ku ihahdaa suuqaas waana sii ballaarin doonaa suuqyo kale iyo ina kalena waa waxaynana waxaa intaa dheer oo rabaa inaan ku daro dalkeennu waa dal qani ah aad iyo aad ayuu ilaahay adduunyada meel muhiim oo dunidu dhan ay jeceshahayna ilaahay waa nagu abuuray oo waana dejiyey khayraadka ummadaha adduunka in badan oo kamid a aanay haysaninna ilaahay waana siiyey hadday tahay bar hadday tahay beer iyo hadday tahay bad intaba laakiin haddana waa ku dhex gaajaysannahay dalkaas sidaas qaniga u ah yaan ku dhex gaajaysannahay waxaan ugu dhex gaajaysannahayna waxay tahay dowlad la-aan ama dowlad nugul oo dowlad nugul ah dowladnimadeena way jirtaa dowlad la-aantii waan ka nimid 10 sano dagaal sokeeye aan ka soo baxnay 12 sano oo kumeelgaar nidaam kumeelgaar aan ka soo baxnay 12 sano kale oo dowlad rasmi ah ayaan wadnaa oo ku soconaa waa soo korinaa laakiin inaan intaa ka sii dheerayno ayaana laga rabaa dadka waxaa la yidhaha waayeelku caruurtu habeenkii cabsataa waayeelkuna maalintii xaajo gardarro wax walba ayuu waayeelku maalintii oo dhan iska ilaaliyaa oo ka cabsadaa caruurtuna habeenkii dhurwaaga iyo maxaan ku rahdaa libaaxa iyo baalka ay ka cabsataa annaga maanta waxaan ku sugannahay nabadda iyo dowladnimada iyo hor u socodka dadkeenna qaarkiis inay ka cabsadaan oo ay jeclaadaan meeshii aan joogno inaan sii joogno oo aanan ka bixin muxuu ahay wixii aan ku jirnay iyo duruufihii aan ku sugnay cabsidaas marka waxay keentay waxaad arkaysaan oo qaylo ah oo yeeraya hadday tahay maxaan ku ihahday social media hadday tahay idaacadaha hadday tahay muxuu ahay meelaha ma aha dad caadi ah dad mas-uuliyiina mas-uuliyad sheeganay waxaa nasiib daraa dad Soomaaliyeed oo diasporada qaarkood ku soo noolaaday oo wadamo nidaam iyo sharci iyo dowladnimo ka jirto ku soo noolaaday muddo yaqaano faa'iidada dowladnimada iyo nidaamka iyo sharciga ay leeyihiin maanta inay jidka u taagan yihiin qaarkood ay leeyihiin jooga suga meesha hala iswarsado bal noo kaadiye hala joogo dastuurka haddaan mathaal usoo qaado iyo 2012 ayaa dastuurka lagu ansixiyey convention gole Soomaaliyeed oo 800 iyo dhowr qofood ayaa isu yimiday markaasay gacanta u taageen oo ay ansixiyeen laakiin maxay dhaheen muddo sanad ka yar ha lagu dhammaystiray dhaheen baarlamaankan aan dooranay markaas waa baarlamaankii aniga i doortay 2012 ha dhammaystiro dastuurka 12 sano kadib dastuurkeenu weli ma dhammaystirin 12 sanana dastuurka waa kasoo doodayna inta ku shir xagga ku shir guddi samee guddi kala samee baarlamaan kale waa kasoo doodayna dood iyo iswarsi iyo falanqayn uma dhinna dastuurka 12 sano waqti nagu filan waaye oon dastuur ka soo doodno dadkii aan nahay doodii dastuurka ku meelgaarka waa dastuurka ku meelgaarkeed 15 cutub oo ka koobnaa waa 15kiisa cutub waa intaan soo kala dhigdhigayna 12 sano dooda aan ku qanci weyne dadka weli u sii hibanaya in ay sii joogto weli la sii doodo la sii wado 12 sano kale dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal waqti nooma dhinna dastuurka ku meelgaarka waxaa ku qoran sida dastuurka ku meelgaarnimada looga saarayo
si dastuurka dib u eegista iyo dhaqangelinta si dastuurka kumeel gaarka meel loo saaro maalintii la sameeyay 12 sano ka hor Soomaaliyadii joogtay maanta ma joogto Soomaalida 12 sano ka hor ayaa maanta jirta waxaan u baahanahay marka Soomaalida maanta iyo midda berri soo socota inaan fogaan arag inta ka yeelano aan ku salayno adduunyada sida ay u nooshahay dawladaha adduunku sida ay u shaqeeyaan ayaan rabnaa inaan u noolaano oo aan u shaqeyno Soomaaliya ma sii ahaan karto god madow oo muxuu ahaayay al-shabaabka iyo burcad badeedka iyo kan balaayada ka shaqeeyo dhan ay ku dhuntaan inay sii ahaato ma yeeli karno ma awoodin intaa ka bad adduunyaduna nagu aqbali mayso Soomaaliya god madow oo bahalo ku jiraan inay ahaato shabaab muxuu Soomaaliya u joogaa ISIS maxay Soomaaliya u timiday u joogtaa hal sabab waaye Soomaaliya waxaa ka jira dhul aad iyo aad u ballaaran oo muddo aad iyo aad u dheer maamul aanu ka jirin argagixisadoodu waxay ku bulaashaa meesha maamul aanu ka jirin ama maamulkeedu uu daciif yahay nugul yahay ayay ku bulaashaa waa sababta keliya ee ay shabaab iyo argagixisadu Soomaaliya u timiday Soomaaliya mugaan fiirino meelaha maamuladu ay ka jiraan si kasta daciif u ahaadaan ama u nuglaadeen waa ku yari raadka argagixisadu waa ku yariya ama ma kama jiro meelaha maamul la'aanta muddo dheer soo ahaa ama maamulkoodu aad u sii nugul yahay waa meelaha ay ku hareen ma sii aqbali karna marka dawlad nugul waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa fragile state inaan sii ahaano waxaan fragile state nimada lagu sii hayna waa dastuurka qabyada ah waa inaan dastuurka qabyada ka baxnaa waa inaan nidaamka adduunyada ay taqaano oo la isu doorto oo la isu mathalaahi aan qaadanaa dhammaantiin marqaatiyaad ka ahaydeen marqaatiga nool oo jooga maanta ayaa tihiin shalay mugii siyaasadda loo tartamayo doorashada dhammaantiin dadka Soomaaliyeed waxaan ka ballan qaadnay dastuurka inaan dhammaystirayno anaa iri saaxiibadii kale oo maxaan ku raaddaa doorashada uu istaagay oo dhammaa yiri wax ma samaynin aniga gaar oo kale oo aan ahayn ballanqaadkii aan dadka ka ballan qaaday inuu fulo ballanqaadkii shalay aan dadka ka ballan qaaday dastuurka inaan dhammaystiraynaan wadnaa dastuurkuna sidiisaba waa living document meel inta la dhigo bis waa dhammaaday muxuu ahaa meeshaasaan dhignay ma aha aayado qur-aan munazala ma aha maanta la dhammaystiraa waxbaa ka dhiman berri waxbaa wixii maanta qurxoonaayoon samaynay berri waxbaa iska bedelaya waa la bedelaa berri dambe waxbaa iska sii bedelaya haddana waa la bedelaa laakiin riyada beenta ah dadka yaan loo sheegin oo ah inaan haddaan joogno inaan berri aan soo saarayno muxuu ahay wax no ma dastuurka waa dhammaystiraynaa ilaahay idankiis duruufteenna maanta waxa ay saamaxayso oo maanta suurtagalka ah xikmaddii ahayday maxaa san maxaa suuraabaa ka ror waxa quruxda badanna ee fiican ee aan suurto gelaynin duruufeyna waa jeclaanayn Soomaaliya in ay Norway oo kale berriba ay ahaato laakiin Norway maanta meesha ay joogto waxay ku timiday safar dheer oo muddo dheer ay soo socotay ku timiday maanta marka annaga waxaan noo suuraaba aan sameyn dastuur inaan dhammaystirno doorasho qof iyo cod aan qabanno khawaarijda dalka ka saarno dowladda iyo xukunka dowladnimada dalka inaan ku soo celino dadkeena sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celino booskii dunida aan ku lahayn inaan xaqiijino oo aan dib u soo istaagno konton iyo afar sano konton iyo ka hor ayaa noogu dambeysay inaan qaramada midoobay golaha ammaanka qaramada midoobay aan xubin ka noqon maanta golihii aan xubin ka nahay meelihii kale oo shalay muxuu ahay African Union hadday tahay IGAD hadday tahay jaamacadda carabta hadday tahay maxaan ku iraaday meel kasta oo aan shalay xubin ka ahayn aan dib u soo noolayno xubinnimadeena kursigeena waa ogtiin muddo dheer u banaanaa
oo ciidano ku fadhino dalalka dariska nala xarafka sa nagala bilowda ay boorsooyinka saara jireen shirarka marka la yimaado alxamdulilah maanta taas waa fadhinaa waa joognaa Soomaaliya is there waa fadhinaa waana fadhi doonaa hadii alla yiraahdo marka cabsida aan yarayno mustaqbalku waa qurxoon yahay Soomaaliya fiican dawlad fiican leh barwaaqo ah degan khayraadka ilaahay si ka faa'iideysato oo isticmaasha ayaan yeelanaynaa dawladnimada kama bilaabi karno meesha Norway maanta ay joogto kama bilaabi karno laakiin Norway maanta meesha ay joogto waa higsa karnaa muddadii ay Norway ku soo gaartay meeshaan muddo ka gaaban muddadii meeshaan ay ku soo gaartay muddo ka gaaban ayaanan muxuu ahay yaan Norway muddo ka gaaban ayaan ku gaari karnaa meesha Norway ee maanta ay taagan tahay dadaalkeeda haddaan la nimaado aqoonaan leenahay yacni dadkiinii dibadda u soo baxay aqoon weliba ay aad ugu tilmaamayiin ayay yeesheen haddaan dalkii meel degan oo lagu soo noqdo aan ka dhigna aqoontaasoo dhammi way noo soo noqon doontaa inta dalka joogtana aqoon la'aan mayne waa ka shaqeynay inay jaamacada jiraan wax walba jiraan aqoon xoogan oo fiican ayaa jirta maanta Soomaaliya aad iyo aad ayay aqoonteeda iyo dhinaceeda u dhisan tahay wax badan waa noo dhiman yihiin caruur badan oo Soomaaliyeed oo waxbarashada da'deedii dhaaftay way jirtaa laakiin generationskaas ama jiilashaasna si kale loo xalliyo oo farsamo aqooneed ay leedahay waan u xallin doonaa waxaan rabaa inaan guud ahaan jaaliyadda Norway iyo jaaliyadaha Yurub joogo dhan aan aad iyo aad u ammaano roolka iyo firfircoonida muddada kooban ee aan dalalkan joogno aan ka qaadanay oo caawan halkan laga sheegay 7 ka mid ah 8 muxuu ahay gobol ee dalkan ugu muhiimsan Soomaalidu inay ka firfircoon yihiin siyaasadda iyo maamulka iyo talada ay ku jiraan waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu hambaliyeeyo oo maxaan ku raaa aan ugu bogaadiyana xildhibaanadeena xildhibaan Maryan waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad ayaan muxuu ahay runtii ayaan ugu faraxsanahay in ay dadka Soomaaliyeed meeshay joogaanba muuqaal waana sida aan nahay Ilaahay naga dhigay haddaan Nairobi haddaan joogno waa muuqanaa Oslo haddaan joognona waa muuqanaa Soomaaliya markaan joogno xamar markaan joogno inaan sidoo kale u muuqano adduunka uu arko waayo waxaan dadaalkeeda ku jirnaa mar dhowna aan gaari doono shalay iyo maanta Oslo ayaan meelo badan yaan ka dhaxmaray oo aan ku socday waa fiirinay dabcan dal qurxoon aad iyo aad maxaan ku raadayay u degan oo wanaagsan ayaan shalay waxaan tagnay meesha laga maamulo sovereign fundka Norway leedahay waxa aad iyo aad aan u jeclaystay ama ajab geliya ama aan barana waxay ahayd يعني إن دلقات لا يشوا ترتيب نروي مالنتي oil and gas yeelatay iyo maalintay sovereign fund samaysatay 25 sano u dhaxaysay Norway maalintay ay oil and gas heshay iyo maalintay xataa cashuurta sharciga cashuurta oil and gas ay degsatay muddo kala u dhaxaysay so intaas waxaan dareemaynaa يعني waxay ku timiday maantana waxay ku ammaanantahay Norway inay tahay wadamada adduunka ugu fiican dhinaca maareynta khayraadka dabiiciga ah natural resource management-ga dalalka adduunyada ugu horeeya inay tahay ku daysi mudan waxbarasho mudan laakiin laguma soo gaarin maalin iyo 2 iyo sanad iyo 5 sano iyo 10 sano iyo hal teermo hal qof oo madaxa ay joogtay iyo laguma soo gaarin dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya waxaan la rabnaa nidaam dawladeed oo soconaya oo sanadba sanadka ka dambeeya termka ka dambeeya ay uu joogo qof iska ma joogo hal madaxweyne oo hal ra'iisul wasaare oo Norway inta soo bilaabay maanta jooga oo soo gaarsiiyay meesha ay gaarsiisay ma jirto Soomaaliya sidaas aan rabnaa in ay qor isku dhiib ahaato termka nin walba Soomaali ah ama gabar walba Soomaali ah
ومسؤوليات لو دي بقى أنت كفكر إذا كفكر أما أي كفكرته ورمدة يرتا إدجوكته محاد كتجي أول ضحية ووحي جامع يا علي عاش كتجي واي محل ضحية وإنه قفك كفكره لكن أنا إن جوجج علايا dadka Soomaaliyeed shalayna waa muujinay xukunka iska joog in aanu macna dhadhan noogu sameeyeen laakiin uu dhadhan noogu sameeyo muddada yarta ay joogto maxaa qabatay waxaan qaban karnaa qabanay waa ka tagnay kan naga taga markii la yiraahdo qofka loo doorto waa joognay haddana wax kale qaban karnaa soo bandhigno waana lagu aqbalay waana Soomaalidu wax kasta khibrad iyo way aragnimo u baahan yihiin siyaasadda la sideeda khibrad ay yeelanayna maanta dalka Soomaaliya madaxweyne mar labaad la soo doortaa jooga gudoomiye golo shacab oo mar labaad la soo doortaa jooga gudoomiye aqal sare oo mar labaad la soo doortaa jooga khibraddu iyo way aragnimada inay wax tarayso dadka Soomaaliyeed way fahmeen sidaas daraadeed in fursadda la siiyo qofka oo mar kale la siiyo aad iyo aad ay wax tar u tahay qofka fiican oo niyadda san oo dalka in uu hore u socdo jecel ayay waxtar u tahay midka qaabka daran ee waxyaabaha qaab darooyinka ku mashquulsan waxtar u maaha dawladnimada aan ka wada shaqeynaa hadii aan leeyahay qayla dhaantana aan iska yarayno iyo maxaan ku raadahay liidashada dalka Soomaaliya markaan runtii aanay iska dheer waxa waaye progress la taaba karo koow lama saddex la dhigi karo ayaa dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliya ay sameysay waana sii wadeynaa waana sii kordhineynaa mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway iyo jaaliyadaha kale ee dalalka Yurub dariska ah ka yimiday na soo salaamay na soo dhaweeyay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahad celiyo xildhibaanada Norway ama heer deegaan ha ahaato ama heer muxuu ahay national ha ahaadeen sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xildhibaanadii dawladda Soomaaliya federaalka qaarkood xildhibaan odageena xildhibaan Black oo nagala joogo hadda ila hor noqdo ayaguna inaan meeshaan isku aragno waa ku faraxsanahay dad badan oo halkan iyo dalalka Yurub ka tagay ayaa baarlamaankan xildhibaano ka ah labada aqalba dawladeena wasiir ka ah oo ku jira dadka Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed hadii uu duruuf inta keentay oo dal kale yimid oo ka qaatay documenti wali qawaaniinta Soomaaliya way ogolaatay qofku inuu laba citizen inuu ahaan karo laba muwaadin laba dal inuu noqdo dabcan qawaaniin kala soo socoto oo taas nasadeeda maareyn doonto يعني دول citizenship كل سديسو إن لا ماري وبهاي مركا قوانين أيضا مارينيس أو محن كل هذا آدي آد وقيحيس أيا طبعا دلك الصومالية إيمان دونتا سيد الدنيا دنبا أي ولاده مركا غير نرويج آدي آد أيا أمها سنتي صوماليا نبض الدنيا نورا أيا كشقينا آدي آد أمها سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.